بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada SMCC ama xarunta la talinta caafimaadka Soomaaliyeed. Waxaan soo gudbinaa la talino iyo wacyigelin ku saabsan arrimaha caafimaadka. Waxaan ugu talagalnay in aan ku soo biirino aqoonteena bulshadeena gaar ahaan aqoonta caafimaadka. Maanta waxaan ka hadlaynaa dibriyada. Dad badan ayaa ka cabto dibriyada. Haddaba dibriyadu maxay tahay? Dibriyada waa marka qofka uu dareemo aaryo oo kale in ay caloosha aaryo kaaga jirto oo kale marka aad dareento. Badanaana waxaa la arkaa marka cunno la cuno kadib. Maxaa sababa dibriyada? Inta badan waa macquul in aad dibriyo isku aragto mararka qaar. waa wax iska macquul ah mana ahan wax dhibaato laga cabsado leh laakiin goorma dhibaatada yeelan kartaa waa hadii ay joogto noqoto dibriyada ama dibriyadu ay xad dhaaf noqoto waxa loo sababeeyaa qodobadan soo socda waxa keena dibriyadaas in ay dhaaf noqoto waxa kamid ah gas qofka in uu gas qabo oo kale cudurada gaska qofka in uu qabo waxa loo sababeyn karaa dibriyo ay keeni kartaa sababtoo ah gaska waa aashitada mar walba caloos lagu soo daayana waxay uga tagtaa hawo labo dheefshiid la'aanta inta badan dheefshiid la'aanta markaan dhahno waan inaan fahmi weyno ayaa dhacda laakiin waa in digestion wax afka qalaad lagu yiraahdo waxa yaraanaya shaqada ay caloosha hayso taasna waxay ka imaanaysaa adiga oo aan biyo badan cabin ama calooshaada socodkeeda oo yar macnaha qofka in uu waqti badan calooshiisa aysan soconin taaginta caloosha macnaha constipation inuu qofku dhacay sidoo kale waxaa laga yaabaa in aad adigaba aadan cunin cunooyinka fududeeyo in calooshaada dheefshiid u sameeyso sida qudaarta sidoo kale waxaa kamid ah cunooyinka miiqmiiqyada leh sida cambaha iska taqaanaa babaayga iyo bataatiga waxyaalaha la midka ah waxa kaloo keeni kara in qofka dibriyo ku dhacdo calool fadhiga laftirkeeda calool fadhiga lafteeda waxa ay kugu sababi kartaa dibriyo waxa kaloo keeni kara in aad dibriyo isku aragtid cunooyinka ay aashitada ku badan tahay sidoo kale ruugida xanjo qofkaan hadii uu waqti badan ruugo xanjada waxa fududaanaysa in uu hawo liqo xanjada aad ruugayso waxa fududaanaysa in aad hawo badan liqdo waxaan dibriyadana macnaheeda waxaan dhahanay waa qofka in uu hawo liqo waa hawo yani caloosha in ay ku faafto waa hawo in caloosha laga dareemo waa xanjadana waxay keeni kartaa in hawo la liqo hawada laba midood ay caloosha ku gashaa in la liqo oo qofka cunadii ama cabidii ama ruugidii u raacdo ama waxay ku gali kartaa in caloosha ayada laftirkeeda acidkii la soo deenay ee ka harto marka tan hawo yar caloosha oo dheefshiidka ah way u baahan tahay laakiin waxyaabaha dheeriga waxay kugu keeni kartaa calooshaada in aad culays ka dareento sidoo kale waxaa sababa dibriyada infectionka caloosha haddii bacteria calooshaada ay ku dhalato bacteriadaas waxay kugu sababi kartaa in aad dibriyo yeelato sidoo kale in qofka calooshiisa ay biyo ku jiraan يعني علاش حب كذا إن أبي كجنان عيال قاعد ماشان وفلود intolerance علاش هذا إن أبي عشانيس أما ديعان عشانيس حب كوليب أنت بدن تدخل على ميرا أما على خلا هذا بوايه سده أيام كويران كرنا دبريدا وإن أن جوجنا عنوين كبدنا عن سحن كهالمر عننا تصال بولشدين هالفرد وحن عنا قراعة كله هالمر إنه قفك سيف في عن وقراعة معناها وح وين وعنو marka qofka hadii dibriyo ay ku timaado waxa qasab ah in uu joojiyo cunooyinkaas xaddiga badan oo hal mar qaadanayo waxa lagu la taliyaa ama waxaan kugu la talinaynaa in aad qaadato qadar yar meeshii aad 3 waqti cunno ka cuni jirtay in aad cunnada ka dhigato ugu yaraan 4 5 6 jeer intii aad awoodo marka intaas oo jeer yani aad cunnada ku noqonaysid markiiba waxaad cunaysaa qadar yar cunaysaa halkii aad hore u cuni jirtay qadar badan laba waa in aad ka fogaataa cabitaanada aashitada leh sida waxa kamid ah isbraadiyada kookada waxyaabaha la midka ah oo dhan qofka inuu ka fogaadaa sidoo kale qofka wuxuu u baahan yahay si uu dibriyada isaga yareeyo waa in feejignaada calooshiisa in uu asaga hawo geliyo maadaama uu ka cabanayo hawo caloosha ku jirto dibriyada waa aari in caloosha ku wareegto markaas taas u badanaa ma fahamsano bulshada uma maleeyaan in ay sababi karto dibriyo ama hawada caloosha galas in ay keeni karto dibriyo ama hawada inay hawaba caloosha gasho uma maleeyaan dadkeena tusaale qofka xanji in uu ruugo in qofka bakteerigu wax ku cabaayo ama galasku wax ku cabaayo inuu fuuqsado fuuqsi macnaha ama fiiqsi saa u taqaanid ama hansi Soomaali badan baa lagu dhahaa يعني واحد إن أو فيق أساسي ده كله أو something هو إن أكون راعيس أدريميسد إن أسميسد كاسنا وحافي عن إن أجوجسد مربى هدي أتكعب ناس دبري يهدي أنا كعينين بعفماتكم ما في عنا إن سواء كله كفوجا راشين ككوك عنا جاسكا
badanaa waxaa jiro Soomaalidan horta gaas baan qabnaa qofka badanaa inuu dhaho ama xasaasiyad baan qabnaa way nagu badan tahay laakiin waxaa jiro in la kala fahmo loo baahan yahay qofkeena marka uu xasaasiyad qabo waxa laga yaabaa in cuntooyinka qaar ay ku kiciyaan xasaasiyadda cuntooyin aan qofkaan xasaasiyadda ku kicinne qof kale in xasaasiyadda ku kiciyaan marka jirkaaga reactionada uu bixinayo adiga ayaa garan kartid gaas marka aad qabtid cunooyinka gaaska kugu kiciyo waxa fiican gabi ahaanba in aad elimination ku sameyso in meesha aad ka saarto si aad uga fogaato khatarta adiga ku imaanayso laakiin dadka dhan gaaska yani way ka siman yihiin oo cunooyinkan way ka siman yihiin lama dhahayo sida bulshadeena u fahansan yihiin qof walba cuno gooni ah ayaa laga yaabaa in uu allergy ku kiciyo cuno gooni ah ayaa laga yaabaa in uu gaas ku kiciyo marka fahanka jirkaaga ficilada oo bixinayo ama reactionka uu bixinayo waa immunity-gaaga gooni mid u ah maaha dadka kale kuma xiriirtid sida inta badan qof hebel daawo loo soo qoray in aan iska cunno oo kale waxyaabaha la midka ah waa waxyaabaha bulshadeena ku badan qodobka ugu dambeeya ee shanaad ee aan ku yareyn karno dibriyada caloosha waa in aan socodsiinaa caloosha mar waliba caloosheenna waa in ay socotaa tan bulshadeena way ku amaanan tahay waa isqaras bixiyaan good waxaa la cabaa caano geel waxaa la cunaa waxyaabaha caloosha qarasta ka saara see dhahaan bulshadeena yacni waa fiican tahay marba caloosha haddii la socodsiinayo wax dhib ah maku jabno alxamdulilah meesha ha laga sii wado ayaan dhihi lahaa marka tallaabooyinkan qofka haddii ay wax u tari waayaan oo halahan sameeyo waxaan kugula talinaynaa in aad yani la xiriirto dhakhtar si daawooyin lagu qoro hadda anaga daawooyin kuma sheegayno sababtoo ah yani anaga kuma arkin qofka markii la arko ayaa daawo loo qori karaa that's the right thing taasi waa waxa saxan waa mahadsantihiin